waata soo dhawaada daawadayaal kooxda argagixisada al-shabaab oo deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose fal argagax leh ka geystay iyagoona gubay qaybo kamid ah deegaankaasi inta ugu muhiimsaneed isla markaana shacabka deegaankaasi ay adeegsanayeen wararkii ugu dambeeyay muuqaalo murugo leh oo halkaas ka imaanaya ayaan sidoo kale halkan idinku wadaagi doonaa intaan u gudagalin xogtaasi oo faahfaahsan waxaan ka codsanayaa daawade inaad muuqaalka la agsarto sidoo kale YouTube-keena subscribe saarato si aad u hesho wararkii warbixinada aan halkaan ku baahino markasta waa tahay warar kala duwan ayaa waxaa laga helayaa fal argagax leh ee kooxda argagixisada al-shabaab ay ka geysteen deegaan hoostaga degmada Oodheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose halkaas oo la wareegeen ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya kooxda ayaa la soo wariyay ka hor inta aysan ka bixin aaga degmada Oodheegle in ay dab qabatiyeen guud ahaan qaybihii ugu muhiimsanaa deegaanka Malable oo ka tirsan degmadaasi waxaana qasaare ba'an uu soo gaaray dadka shacabka ah isla markaana u badnaa beeraley oo halkaasi ku sugnaa muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya kooxda inta aysan ka bixin deegaanka waxa ay dab qabatiyeen inta ugu muhiimsaneed deegaanka Malable oo hoostaga degmada Oodheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose iyagoona gubay beerihii guryihii iyo sidoo kale qalabkii loo adeegsan lahaa beerahaasi isla markaana ay adeegsanayeen dadka shacabka ah ee u badnaa xoolo dhaqato iyo sidoo kale dad beeraley ah sargaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo goobtaasi ka hadlay waxa uu sheegay in ay burburiyeen masjidkii deegaanka isagoona oo falkaasi ku tilmaamay fal argagax leh isla markaana ka reeban bini'aadanimada iyo sidoo kale ka baxsan islaamnimada waxa uu sheegay kooxda inta aysan baneenin deegaankaasi inay gubeen guryihii dadka shacabka ah ay degnaayeen sidoo kale gaadiidka ay adeegsanayeen dadkaasi shacabka waxa uu xusay in gabi ahaanba ay baabi'iyeen inta ugu muhiimsaneed deegaanka Malable oo hoostaga degmada Oodheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose oo isna dhankiisa ka hadlay dhacdadaasi argagaxa dadka deegaanka ku beertay isla markaana inta aysan kooxda ka bixin ay ka geysteen waxa uu sheegay in kooxdu ay cadeysatay fikirkooda isla markaana aysan daneyneynin dadka shacabka ah cid kasta halka ay ku sugan tahay kooxdu isla markaana markii ay doonayaan in ay deegaankaasi firaaqayaan sidaan oo kale ay ku sameyn doonaan waxa uu sheegay in kooxdu markan ay soo jeesatay isla markaana ay beegsanayso dadka shacabka ah guryahooda iyo sidoo kale agabkii ay wax ku qabsanayeen sida gaadiidka beeraha loo adeegsado aad muuqaalkan ka dheehan karto kaas oo halkaasi ku basbeelay iyo sidoo kale guryo fara badan oo ay dad shacab ah degnaayeen waa kan muuqaalkan ka imaaday qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan deegaanka Malable oo ka tirsan degmada Oodheegle ee gobolkaasi waxaana laga dheehan karaa murugo iyo urkutaayo ee dadka shacabka ah loo geysanayo isla markaana tiiraaya xabaarsan maadaama hooygii ay dadka shacabka ah degnaayeen kooxdani ay gubtay isla markaana gabi ahaanbana ay dab qabadsiisay sidoo kalena gaadiidkii adeegsanayeen dadka shacabka ah halkaasi uu ku gubanayo deegaanka Oodheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose dhawaan kooxda argagixisada al-shabaab ayaa firaaqiyay waxaana hadda gacanta ku haya ciidamada xoogga dalka iyo kuwa midowga Afrika iyagoona halkaasi ka bilaabo howlgalo ka dhan ah kooxda argagixisada al-shabaab kuwaas oo hore loo sii baacsanayo haddana gabi ahaan qaybo kamid ah gobolkaasi waxa gacanta ku haya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya kuwa midowga Afrika oo iskaashanaya al-shabaab inta badan waxa lagu eedeeyaa dhibaatooyin ay u geystaan dadka shacabka ah iyo sidoo kale deegaanada ay dadkaasi degan yihiin iyagoo tiro dhowr jeer ah sidaan oo kale deegaano dhowr ah ka sameysay kooxda argagixisada al-shabaab dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo ka duuleysa
fikirka kooxda argagixisada al-shabaab waxa ay qaaday guluf ka dhan ah kooxdaasi iyagoona qaybo ka mid ah gobolada dalka kooxda argagixisada al-shabaab dab culus lagu gaarsiiyey. al-shabaab ayaa kol hore waxa ay qiratay in howlgalkii ugu khasaaraha badnaa kooxda argagixisada al-shabaab soo gaara dib u doorashadii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyagoona sheegay in dagaaladii ugu dambeeyay ee duqeymihii cuslaa ee dhowaan ka dhacayay qaybo ka mid ah gobolada dalka lagu naafeeyey kooxda islamarkaana horjoogayaal muhiima iyo sidoo kale dagaalyahano in muddo ah ka barbar dagaalamaya kooxda argagixisada al-shabaab loogu laayay qaybo ka mid ah gobolada dalka iyagoona la iskugu daray dagaal toos ah oo lala gala kooxda iyo sidoo kale howlgalka aamusan oo xilli habeena iyo sidoo kale maalinba lagu qaaday kooxda argagixisada al-shabaab iyagoo la beegsanayay goobaha ay ku sugan yihiin horjoogayaashooda sidoo kale dagaalyahanadooda. waxaana tiro dhowr jeer ah duqeymo culus lagu qaarajiyey horjoogayaashii ugu muhiimsanaa kooxdaasi iyadoona markii dambena kooxdu ay bilowday inay isaga baxdo deegaanada weeraradaasi loogu geysto gaar ahaan deegaanka Oodhigle oo halkaasi dagaalyahano badan loogu laayay duqeyn halkaasi ka dhacday. dadkan qawaariijta ah dalkan xarsiga u dhiidan waa ficilkoodii xumaantoodii ugu dambeysay ay u soo bandhigayaan shacabka Soomaaliyeed ay ka mid tahay guryahan dad masaakiin ay iska leeyihiin oo hantidoodii ay dhex taallo oo aad arkaysaan cagaftii beeraha inay halkaan taallo raashinkii runtii badarkii beeraha oo halkaan u yaalo oo aad arkaysaan fuustooyinkan ku jiro in ay gubeen guryihii macala raashinkii macala cagafiyadii macala xoogsatidii oo dhan wixii ay ku noolaayeen inay dab qabatiyeen waxayna tuseen wejigooda dhabta ah xumaantooda dhabta ah oo horeyba loo yaqaanay oo Soomaali oo dhan ay u ogeyd runtii insha Allah taala dadka halkaan guryahan lahaa ee shacabka ah maamulka gobolka Shabeellaha Hoose oo wakiilka ah madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed iyo guud ahaan shacabka reer Koonfur Galbeed ee gobolkan ku nool waxaan ka shaqeyn doonaa sidii dib u dejin loogu sameyn lahaa